السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا وناكسن داوديال كسر دوادة برنامج كذا بهذا القيبة وحين كل جينا إسلا إثيوبيا وحنا سجارة وإجدونا وركي أم حقيه قدام بيا ديالك وقوي إثيوبيا يهلك وحمر يسرح ريح حبنا عيدا إسكالي وقوي دالكاسي وعن سيدو كلا إجدونا متكمل ترياشة عيدا كإريتريا أو وركو أي شيء يعني إن لغو قبتي ديالك وقوي إثيوبيا ما حصلت دا وقوي دالكاسي كتاعن سيدو كلا وحنا إجدونا هذا الآن هلس وقوها TPLF وهنجبادها أو كسر بحي مدحوينها هذا الكاسي إريتريا سياسة فوركي محوية هذا الكاسي سامين أنت اللي أيوكو يرن كلا دارك وقوي إثيوبيا يكوح TPLF سجارة وحارمها سوين إن يقولد أو مركز نعيق بيحفرديا سجاين وحكوا يدين دونا تمانكا أما دوري تمانكا دقيقة يفوت دينو بسوهاي قولد سلوم أدبا ما أصنت هاي صاحبك القعسة ودي أشيرنا وسلامنا هاي أنا أقول برنامج بالوقوي إثيوبيا إذا قال ذيك السعودي هالكا وحمريان العيوة كويس يريحي horta maalintii 17aad yaa kolba qolad dhinac loo ceyrsanaya ilaa iyo haatan ma jirto guul rasmi ah oo qol ay la jiifto labada dhinacba juhdigoodii iyo dadaalkoodii 17ka maalmood oo lagu daray sanadkii ka horeeyay waxba ma ka midho dhalin waa jugjug bartaadii joog waa dagaalku maalinku bilowday bartii la isla marayay baa la isla maraya la sirri riixawn kol boqol la ceyrsadaa waa la soo celiyaa marka 17kan maalmood ee dambe xaaladahoodii haddii aynu dib u fiirino sanadkii hore dadku way ka wada dharagsan yihiin horta waxaad moodaa inay aad xaalku u sii cuslaanayo kooxdan TPLF laba dhinac buu culeysku hadda ka soo fuulay mid waxay ahayd ciidankii Eritrea ee dhankan caanfarta dhabar jabinta kaga sameeyay midna waxay ahayd ciidankii ay u direen marka hore dhanka deegaanka Amxaarada oo ay filaya inay soo khafiifiyeen ama yareeyeen tirada ciidamada xagga ay u direen kadib markii ay dhankan Humeero xooga saareen oo iyadana culeys ka soo fuulay saaka mar kale yaa waxa la arkayaa dagaalyahano fara badan oo TPLF oo ku sii qulqulaya dhanka deegaanka Amxaarada sababtu waxay tahay magaaladii Gobeeye oo ahayd qalcadii ugu adkeyd ee waldiyo laga difaacayay isla markaasina lagu dagaalamayay waxay gacanta u gashay ciidanka dawladda iyo maleeshiyaadka faano oo dib u qabsaday oo ka saaray kooxda TPLF wuxuu ahaa qorshuhu in ay Gobeeye markii la qabsado kadib waxay 10 kilomitir bay u jirtaa meesha la yiraahdo Waldiya marka qorshuhu wuxuu ahaa Waldiya in laga qabsado Gobeeye ciidankii TPLF marka ay marka tiradii yareeyeen ciidankii dawladdu yiraahdeen maxaan fiirsanaynaa ma difaac ma wali ku jireynaa waa lagu dhuftay maalinimadii shalay ahayd dib baa looga qabsaday Gobeeye ciidankaasi TPLF iyaguna saan ku sheegay waxa u sii daabulayaan ciidamadii ugu faraha badnaa oo ay u direen dhankaasi deegaanka Amxaarada hadda markii uu waagu ku bariyay oo magaaladaasi ay rabeen Waldiyo inay ka qabsadaan dib looga soo saaray dagaalka halkaasi ka socda waa mid aad u culus ciidamada dawladdu waxay jaha kale ka sheeganayaan horumarro ay ka sameeyeen gaar ahaan aaga deegaanka lagu magacaabo Dhadhabeet oo ay lagu soo waramayay in ay qabsadeen ciidanka dawladdu laakiin warar hadda soo baxay waxay sheegayaan in dib looga reexay ciidamada dawladda deegaankan Dhadhabeet maalinimadii shalay ahayd ay guulaha ka sheegteen ciidanka dawladdu waa san ku sheegayo waa jugjug bartaadii joog qoqolaa meel laga saari hadana kuwii kale yaa soo gali sidoo kale dagaalo ayaa ka socda nawaaxiga deegaanka Adhaarkay ciidamada huwanta iyo xoogaga Tigreega ayaana ku dagaalamaya aagaasi iyadoo dhinacyadu kala sheeganayaan gacan sareynta dagaalka furintaasi Adhaarkay mana aha mid warkeedu cad yahay Adhaarkay oo xitaa kuwan kale intay iska ciidanka dawladdu qabsadaan hadana laga saarayo ama TPLF intay qabsatay laga saarayo xooga ila madax banaan baa laga heli karaa laakiin Adhaarkay waa meel go'doontay la isku raamsada bas ah iyaguna waxay sheeganayaan mid waliba wuxuu leeyahay magaalada ana ku sugan intuu sawir oo ka qaaday maalin uu qabsaday oo soo bandhigo marka Adhaarkay wali iyada warkeedu ma cadda iyo cid ay gacanta ugu jirto laakiin deegaamadan kale kala dawladda gacanta u galayaan kala TPLF gacanta u galayaan maqdada dagaalba oo intii meesha la isaga baxo oo fursad la iska eegto la isku laayaa hadana lagu soo laabanaya mise tabar baa sida ka labada dhinacba way qoladii qabsatay way adkaysan lahayd meeshan inay sii joogto marka waxaad moodaa in hawshaasi ay weli sidaas u adag tahay sidoo kale waxa lagu soo waramayaa in la burburiyay buundadii isku xidhi jirtay Dhadhabeet iyo sidoo kale Adhiramas oo muhiim u ahayd isu socodka gobolkaasi Tigreega iyo Amxaarada marka magaaladaasi gabi ahaanba buundadii isku xidhi jirtay
waa la jaray oo dowladuna waxay ku eedeynaysaa in TPLF ay jartay TPLFna waxay ku eedeynaysaa in dowladdu jartay laakiin waxaa hubanti ah qolo naflacaari oo hawshu ay ku adkaatay inay istiriyaan laydin soo marin oo meesha ay gooyeen marka buundadaas dhulka la dhigay وهكذا ما سنتهي أحمر وحن أغين لبدي كوني لبعتن كي جون مركي تبر في دب أسر وقال عريسي وكوي عرّتي هذا سواء محمد إن للقاجين لا يعيدن كي ده أي سلطة علميين ميليتريها حجابه أود نديرها كان أحمر يمارت يعيدن كميليتريها ما تبرع عصب الله فري ما هو علوم ما هو مارتي علوس وحوي أي كده قالان بالسيء واجد ويتوا كان أركنون عيدن كدولة إيو أحمر عرّيون مرة صعب مرة صعب عرّي هذا صعب مدائن ليصير ريحة أو أي سنجرن سيدي أحمر هذا اللون برسنجي عيدن كملتريجا محايس بدل horta wax markuu kugu cusub yahay iyo markaad la qabsatay aad muddo wado way kala duwan ama dagaalka inay barteen ha noqoto ama ha noqoto de wixii in la arkay oo meel hadda loo socdo aysan jirin hadda day amxaaradu sidii markii hore dagaalka bilowgiisa u carartay u cararto ilaa halkeen la gaari ma la sii socon ilaa aad sabab lagu dhawaado waa maya waxa lagu khasbanaan doonaa in hadana dib wadadii loogu soo celiyo oo la soo canaanto marka hadda waxaad moodaa inay dagaalka la qabsadeen oo sidii markii hore uu ku ahaa markii hore ciidanka dawladda xitaa iyaga jabiyay ma aysan ciidanku iska jabin wixii kumaankum ciidan ma aha ee magaalooyinka laga soo arooriyay ee booteynayay ee baabuurta saaraa ee yaacay furinta hore ku yaacay markay dhow tiraahdo ay dib u soo wada jeesadaan oo dad uu yaacay ay ka hor imaadaan balaayada waxaan qof cayrsanaysa aduguna ha u istaagan baa isdhiya waa si carari waxa xasuusataa ciidankii liibi booliska Soomaaliya la geeyay waa kuwii muuqaalada ka duwaya xitaa militariga cararaya oo laha war xagee u cararaysaan intii laga guuray oo iyadoo qulqulaysa ay arkeen yeelahay war xagee u socotaan way yaabanaayeen marka wixii hore waa la iskaga yimid in hadda la qabsaday yaa moodaa tabariwa meel ay dadka geysaba laakiin hadda waa la fadiriraya sidii marka hore loo cararay loo cararay wahagaag hadii aan ku sii socono barnaamijka wararka ka imaanaya waqooyi Itoobiya waxay sheegeen in taliya sare oo ka tirsan ciidanka Eritrea lagu dilay ama lagu qabtay raahdeed oo gacanta ay ku dhigtay kooxda TPLF waqooyi Itoobiya taliyahan bal nooga dhacay halka lagu qabtay iyo waxa weeye xilka oo hay horta taliyahani waa mid ka mid ah taliyaashii ugu caansanaa ee xuduudda Itoobiya iyo Eritrea ka howlgali jiray waa taliye deegaanadaas aad looga yaqaanay waa taliyaha guutada dhuhul ee ciidanka Eritrea waa mid ka mid ah qaybihii ama guutooyinkii loogu talagalay dhabarjabinta ee deegaankan canfarta dhankeeda ka galay dhankan Tigreega isaga oo nool oo ciidamo fara badan oo Ethiopian la socda yaa gacanta lagu dhigay waa laga soo dhaxay magaar buu cararay xitaa dhaawac mu ah horta ninka magaciisa waxaa la yiraahdaa General Barha Gabrasalaase waana saan ku sheegay nin furinta hore ee xuduudan Tigreega iyo Eritrea iyo Ethiopia aad caan uga ahaa isagoo aan dhaawac qabin oo balaayo bidheedaan qabin oo caadi u socdo oo waramaya uu soo istaagay TV-ga Tigreega waxa ka dambeeyay ciidamada Ethiopian oo la dhadhayayo oo dhaawac meel yaalo oo la daweynayo markuu hadlay wuu hadlaya oo sida loo qabtay iyo sida wax ugu dhaceen iyo waxa soo dhan buu ka sheekeynaya marka wuxuuna hogaaminayay guuta kamida ciidankii Eritrea ee ugu talagashay inay dhabarjabiso kooxda TPLF marka ninkan qabashadiisu waa kii hore horta saraakiil Tigreeg Eritrean oo la qabto waa kii ugu horeeyay hadda dagaalkan cusub waxayna tahay dhabarjab bay ku tahay ciidamadii duulaanka ah sababta ay u culus tahayna waxaad ka dareemi kartaa durba madaxweynaha Eritrea uu ishayn waayay madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki uu ishayn waayay arrintan uu ka hadlay marka sarkaalkan qabashadiisa iyo soo bandhigidiisa TPLF waxay u tahay guul muhiim ah iyo in ay markii ugu horeysay soo bandhigtay ciidamada Eritrean iyo saraakiishoodii kuwan dawladda duulimaadka ku ahaa halkaasina iyaguna waxay ku tahay dhabarjab maadaama aan loo baranin in Eritreanka la qabto ciidamada Ethiopian hal la qabto oo intii maalmo la hayay kadibna iyagoo bacawata deegaanadoodii dib ha ugu celisay TPLF laakiin ninkan Eritreanka
hoogiisa unbaa galay baan u malay aad ma santahay waag madaxweynaha Eritrea oo isagu ka hadlay xasarada waqooyi Itoobiya ka aloosan hadal adagna uu ka soo baxay muxuu ka yidhi arrintan horta aad buu hanjabay loogamana baranin hanjabaada waa nin hadalkiisa hanjabaada iyo ficilkiisu uu ficilkiisa horeyn jiray laakiin hadda hanjabaad baa ka timid hanjabaadani waxay u dhignayd ma jirto cid ku kaftami karta nabadda shacabka Itoobiya iyo tan shacabka Eritrea sidoo kale TPLF dulqaadka waxay u arkeen in laga cabsanayo marka laga cabsanayo lagama cabsanayo waa la dul qaadanaya intii hore hadalka wuu sii watay isagoo hanjabaya wuxuu yiri dariiqadii nabadda ayay burburiyeen dariiqii nabadda ayay burburiyeen waxayna ku dhamaatay fashil balse hadda waxa la gaaray xilligii la aasi lahaa kooxda TPLF la dhilaha hada xaqula adduunka in laga waayo mooyaane xal kale oo hadda ay leeyihiin ma jirto taagaya marka ma waxa kululeeyay sargaalkan aad caanka uga ah xuduudda Eritrea iyo Ethiopia la qabtay waxa kululeeyay culaysa kale oo dhanka dagaalka ka dareemay lama garanayo waxa intaas ay ku dareen Eritrea shalay waxay soo bandhigayeen kumanaan ciidamo ah oo caasimada dalka Eritrea ku soo bandhigaya dowlatus oo gaardi ku mareeyay marka masanad guuray xusanayeen ma dowlatus kale ahayd hanjabaada siyaasada Afwerki maxaa ku soo aadiyay ma waxa soo socda hawlgalka ma dambaysa oo la doonayo in sida shanlada timaha u dhaxmarto deegaanka Tigreega loo dhaxmaro lama oga waqtiga ka jawaabi doonto laakiin ninkan qalafsan Eritrea xukuumadda siyaasada Afwerki oo lagu yaqaanay inuusan inta badan hadlin ama hanjabin hadda wuxuu leeyahay waa in la tirtiro TPLF وهجاك آدم أسيه قلنا داود يال قلب كنا أنت سيان كسر قبل قبلنا تاني كلنا دنبه نبدل